هذا كور با idinka sheekeeyeen dhagax buur oo tabliiq aha hada koor dhowr ba idinka sheekeeyaan u malaynayaan yaanagoo tabliiqan 93 ku maray meel uu maqaaxiyar ku lahaa waan ku booqano waa soo salaanay waxaan u soo salaanay hawlna lagu sheegay niman ilka caslaya oo dib badan oo dhagax buur oo qolyahan jaadka cuna ah ama ka shaqeysta ah oo waxa jira cayb badan oo caaya ilaahay diinta higaadiya malaa'ikta rasuulka hargeysay cudurka ka dhaxleen baan u malay si kastaba noqotay niman noocaas jiray nin iska miskiin oo dan yar buu ahaa marka wuxuu yiri intuu soo dhex istaagay ilka casti dhagax buur iyo wuxuu yiri ballam kale ninka ilaahay caaya ama rasuulka wax ka sheega ama diinta ku leexda kala bixi mayno mid baaba markiiba ku asaga ku tuurayo warnaga tag waxa diintaada ku sameey waa hawshu halkii la taagaya foodu galiyay waa laga xoog badnaay wadaadkii dhulka la dhigay waa la jilcay waa la kala qabtay maalin dambe ayaa wuxuu nagu yiri anoo socdo maqaaxid intaan qori u soo gurtay laagti ka soo gudbay dhagax buur laagtan jareerada weyn ee dhagax buur marta ayaa asagoo dhaadhacay iska hornimid markaas ay soo ninkii shalay diinta caayima ah waan ku boodi baadana foodan galiyay maalinkaasi si xun imuusan dilin adu waan isfahanay waan iga xoog badnaa waana la ka qabtay hadana dad kale baa kala qabtay maalinka saddexaad baa bartanka suuqa asagoo socday yaani aas ka hornimid hadana foodan galiyay soo ninkii shalay ma aha markaan sida ay iska booday buu abo wax ka day 1 kilomitir baad daba orday waa gaari waayo marka waxa way ruuxa uu is adkeeyo oo soo istaago waxa way wixii uu ka libkeerahay saasan wadaadka u booqon oo soo salaanay takrimatan lahu wa tashrifan hawlaha tabliiq waa idinka faa'iidinka wahabiyada almuhim saasan wadaadka ugu tagnay waxa uu ruuxa haduu mabdiisa isku adkeeyo ka dhaqaaqi waayo waxa loo sameeyo oo leecaya kii kale